السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa qayb ka ah 15 bishan May oo ay dhacayso doorashada madaxweynaha iyo guddiga qaban qaabinaya doorashada madaxweynaha oo shaaciyay qaabka jadwalku u dhacayo guddiga qaban qaabinaya doorashada madaxweynaha oo iska dhex doortay gudoomiye iyo ku xigeen codadka farmaajo heli kara wareega koobaad oo saadaalin caalamiya laga bixiyay iyo rajada filla Soomaaliya oo si xumaanaysa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo la kulmaya hoos u dhac dhinaca codadka kadib markii dagaal qaawan ay ku soo qaadeen siyaasiyiin ay isku reer yihiin qodobadaas iyo qodobo kale oo daasunayeen dul tagi doonaa u diyaar garooba warka dunida TV hadii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato ha moogana subscribe saarto YouTube-kan kala mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanid doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa qabsoomaysa 15 bishan May sida ay daboolka ka qaadeen guddiga doorashooyinka madaxweynaha qaban qaabinaya guddiga qaban qaabinaya doorashada madaxweynaha ee ka kooban xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in 15 bisha May oo ay naga xigto 10 maalmood oo kaliya in ay ka dhiman tahay doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 15 May oo ku beegan sidoo kale maalinka dhalinyarada Israel waxaa la dooran doonaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxayna noqon doontaa tilaabo si weyn dadka Soomaaliyeed ay isha ugu hayeen in mudaba sanad iyo bilooyin ka hor ayaa la filayay inay qabsanto doorashada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee madaxtinimo balse fashil ayaa ku yimid kadib markii la isku fahmi waayay qorshaha doorashada waxaana taas ceeb weyn iyo fadeexad kala kulmay madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo guddiga oo shir yeeshay ayaa soo saaray jadwalka ay sheegeen in doorashada ay ku qabsoomayso isla markaasna ay ku dhacayso guddiga doorashooyinka qaban qaabinaya ee madaxweynaha ayaa waxa ay dhaxdooda iska doorteen gudoomiye iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeen shakhsiyaadka ay doorteen guddiga qaban qaabinaya doorashada madaxweynaha ayaa ka soo kala jeeda Puntland iyo Koonfur Galbeed gudoomiyaha guddiga qaban qaabada doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa loo doortay senator Cabdiqani Geelle Maxamed oo laga soo doortay deegaanada Puntland sidoo kale xildhibaan Maxamed Axmed Berri oo la tartamay ayaa helay 5 cod halka sidoo kale Cabdi Ismaaciil Samatarna uu helay 2 cod oo asna u tartamayay gudoomiyaha guddiga qaban qaabada madaxweynaha doorashadiisa sidoo kale gudoomiye ku xigeenka guddiga doorashada madaxweynaha ee ka kooban xildhibaanada labada aqal ayaa loo doortay xildhibaan Akeero inuu noqdo asagoo kaga guuleystay Ibraahim Maxamed Aadan Macallimo Maxamed Keero Maxamed ayaa helay codad gaaraya 9 cod halka Macallimuna uu helay 7 cod hal codihina uu halaabay guddigan ayaa shaqadoodu tahay inay soo saaraan qorshaha doorashada iyo sidoo kale xeerarka doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 10 bari kadib waxaa la filayaa in Soomaaliya ay yeelato madaxweyne rasmi ah waxaana laga gudbi doonaa xaaladda adag ee ay Soomaaliya wajahaysa sanadihii la soo dhaafay doorashooyinka ayaa kuwa muhiim u ah dawladnimada Soomaaliya muddo badanna Soomaaliya waxa ay la daala dhacaysay iyadoo oo doorashada madaxweynaha ay dib u dhacday hubaanti la'aan dhinaca doorashooyinka iyo sidoo kale iyadoo laga cabsi qabay isku dhacyo madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mar kale si rasmi ah u bilaabay ololihiisa doorashada xubnaha ka shaqeeya filla Soomaaliya ee isku dhow yihiin sida agaasima ku xigeenka madaxtooyada iyo sidoo kale qaar kamid ah saaxiibadiisa ayaa waxa ay bilaabeen arinta ku saabsan ololaha madaxweyne Farmaajo madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoo la dooranayo 15 May ayaa saaxiibada filla Soomaaliya waxay durbadiiba bilaabeen inay sameeyaan olole xoogan oo ku saabsan madaxweynaha madaxweynaha dhamaaday Farmaajo wareedyo muhiim ah iyo falanqeeyaal caalami ah ayaa isku raaceen hadii Farmaajo tartamo uu heli karo
ugu yaraan 100 cod labada wareeg ee ugu horeeya taas oo sababi karta inuu ka mid noqdo shakhsiyaadka u soo hara wareegga ugu dambeeya ee doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mucaaradka ayaa si aad isku abaabulaya waxa ayna wadaan qorshe ay washamsi ugu qaadayaan ama ay doonayaan inay si wada jir ku wajahaan sidii xukunka u weydaari lahaayeen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in kaseeto xildhibaanada badankoodu iminka aaminsan yihiin in Farmaajo uusan Soomaaliya xal u ahayn uu sanad bixi karin haddana dadka qaar ayaa qaba in haddii Farmaajo la doorto Soomaaliya ay dhibaato xooggan ka dhici karto madaxweyne Farmaajo waxa la leeyahay dhammaan saaxiibada oo leeynaya inuu heli karo codad ku dhawaada 100 hadii uu dadaalo labada wareeg ee ugu horeeya sida wareegga koowaad iyo kan labaad saaxiibadiisa ololuhu waxay durbadiiba bilaabeen hal ku dhigyo u badan bagamaaqaado cilaa taas oo ku saabsan in madaxweyne Farmaajo uu mar kale doorashada madaxweynaha ku guuleysan karo in kaseeto siyaasiyiinta dhan ay ku jiraan olole intooda badan loo ekeysiyay mid caadi ah balse mid laga badbadiyay oo siyaasiyiinta Soomaalidu ay ka been sheegaan waxyaabaha ay ku ololeynayaan haddana Farmaajo waxa uu soo bandhigayaa qorshayaal la xiriira sidii mar kale loo dooran lahaa dadka qaarkiis waxay su'aalo isweydiinayaan muxuu Farmaajo ka bedeli karaa Soomaaliya maadaama 5 sano iyo dheeraad uu xilka hayay asagoo ku guuldareystay inuu maca Soomaaliya gaarsiiyo doorashooyin ayna Muqdisho ka dhaceen dagaalo iyo iska horimaadyo guddiga doorashada madaxweynaha qabanqaabinaya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa jadwalka ay soo saareen waxa uu dhigan yahay sida tan 8 May ilaa 10 May waxaa la diiwaan gelinayaa musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xilliga shaqaduna waa 9 subaxnimo ilaa 6 galabnimo sida ay sheegeen guddiga qabanqaabinaya doorashada madaxweynaha hadal jeedinta musharaxiinta madaxweynaha ayaa qabsoomaysa 11 bisha May taas oo loo qorsheeyay in musharaxiintu ay khudbadaha bilaabaan waxaana sidoo kale khudbaduhu socon doonaan ilaa 12 May ee 2022 diyaar garowga ay guddigu sameynayaan ayaa waxay qaadanaysaa 13 ilaa 14 May halka doorashada madaxweynaha la qaban doono 15 May jadwalkan ayaa durbadiiba waxa dadka qaarkiis sheegeen inuu yahay mid dhaxalgal ah oo dalka lagu gaarsiin karo doorasho xor iyo xalaal ah isla markaasna ay Soomaaliya uga bixi karto xaaladda adag ee ay ku jirto madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa la daaladhacaya hagardaamooyin ay ku hayaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta ay beelhoosaadka wadaagaan xubno ka tirsan siyaasiyiinta beeshiisa ayaa doonaya inuu san noqon madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxayna bilaabeen olole xooggan oo ay meesha kaga saarayaan in uusan helin wax madaxweynenimo ah iyo in uu wareegga koobaad ku haro madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni madaxweyne ku-xigeenkiisa ayaa ka mid ah dadka loo adeegsanayo kaas oo dagaal siyaasadeed kaga furay magaalada Garowe si looga mashquuliyo arrimaha doorashada Deni waxa la sheegay sidoo kale in qaar ka mid ah xildhibaanadii laga soo doortay deegaanada Jubbaland ay bilaabeen inay ka xarig furtaan taas oo rajadiisa hoos u sii dhigaysa Deni qaar ka mid ah saaxiibadiisu waxay sheegayaan iminka sidii hore ee uu ku talagalay inaysan wax u socon asagoo ka rajo xun qaabka doorashadu iminka ay u socoto iyo siday suurtagal ku tahay inuu helo xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Muqdisho oo la xoogan uu ka socdo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadka ugu fursada wanaagsan balse iminka waxa la soo sheegayaa in hoos u dhac uu jiro in kaseeto uu dadaal wali bixinayo warkad ka daawanaysan dunida TV waaga inta sidaas